magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxa maanta lagu soo bandhigay taariikhda qadiimiga ah Ingiriisku kaga tagay qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliland munaasabadan oo lagu qabtay xarunta isbitaalka aadnay magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale laga warramay taariikhda ay lahaayeen askartii Soomaaliland ee ka qayb galay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka ee metelayay waddanka Ingiriiska anigu waxaan leeyahay taariikhda horta waxaynu maanta leenahay meel lagu xafido museum baynu leenahay wasaarad baynu leenahay oo wixii hidihi iyo dhaqankii iyo taariikhdii iyo lagu ururiyo aan arko markaan tagaba aan ku farxo waxyaabaha ay soo ururiyeen waxaan leedahay ma sha Allah taariikh dhow iyo taariikhdii hore tan waa tii dhaweyd weeyaan ee inaga mas'uuliyad naga saaran tahay inaynu xafidno tii naga horeysay ee kumanaan sano naga horeysay taariikhdii wixii xafidmaya way xafmideen soo gaaray sida laasgeel oo kale iyo dhagax kurre iyo kuwa kale oo meelahaas dalka laga helo kuwaas ilaahay baa soo badbaadiyay halkaas soo gaarsiiyay kuwa maanta jira inagay mas'uuliyad naga saaran tahay inaynu xafidno oo wixii dhagax laga fujisanayo iyo wixii magac ka lumay ee magacii loo soo celinayo iyo inagay mas'uuliyad naga saaran tahay waxaan anigu halkan aan ku hayaa bilad sharafyo la siiyay Allah yarxamo awowgay Yuusuf Ducaale Amare wuxuu ahaa berigii hore de website iyo maxaan ku raaa WhatsApp iyo YouTube iyo waxa ma jirin waxa jiray waxa lagu warka la isugu gudbin jiray wax la yiraahdo dhiidha Morse code ayaa jiray dhiidha taana waxa ka horeeyay iftiin oo touch big laga siiyo oo code ka isaguna gudbiya ayaa jiray oo hadii meeshii aanu koronto jirin ama wax gudbiya dhiidhaadii leydka ayaa la isugu gudbin jiray markaas intuu mid u gudbiyo oo uu leydkii wax ka siiyo ayaa kii loo gudbiyay nasaka ku sii xiga uu sii gudbin jiray saasaa warka loo kala qaadan jiray waa halka ay ka yimaadeen noobiyadaha badda lagu sameeyay meelaha la rabo in maraakiibtu ka leexato ayaa noobiyadaha la dhigi jiray halka dhagax baa waxa buurba biyaha hoosteeda markabku ka leexo oo talaabo intaas oo talaaba u jirso meesha noobiyada laga sameeyay waxa kaloo jiray markii dhiidhaadu timid awoow Yuusuf Ducaale Amare boosta waxa hayn jiray hindi baa hayn jirtay iyo ingiriis baa hayn jiray markii dadkii Soomaaliland u dhashay ay tacliin barteen ee ay barteen waxa la oran jiray signalsman buu ahaa awoow cadan baa lagu soo tababaray halkan markuu yimid ee uu boosta ka shaqeeyay dhiidhaadii buu qabsaday oo wuxuu ahaa signalsman markii dambana wuxuu noqday postmaster buu ahaa wuxuu noqday ninkii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ee noqda postmaster lagu aamino boosta oo dhan boostuna waxa weeyaan sida baananka oo kale ayaa loo ilaaliyaa waayo de xog bay ayay wadaa sir bay wadaa message barasaabka meel kale uu sido u dirayo boosta la dhigi jiray marka lagu xafidi jiray wadamada lagu gaarsiin jiray marka postmaster buu noqday Yuusuf Ducaale Amare marka waxa nasiib darro ah isagoo markii uu retire garoobay bilad sharaf baa la siiyay markii dambana aabo aadan dhakhtar oo isaguna noqday qofkii caafimaadka ugu sareeyay loo jiray waa aabaha caafimaadka aadan Ismaaciil Guuleed aadan dhakhtar Allah yarxamo aabahay isagana waxa la siiyay bilad sharaf marka bilad sharaftiisu waxay ahayd for services to the crown ayaa la yiraahdaa marka waa British Empire Medal baa la yiraahdaa marka British Empire Medal awoowna balada la siiyay marka waxa aniga iska kay khaldan oo aan u baahnahay in mar Ingiriisku ii kala safeeyo ta uu awoow lahayo to aabalaha marka labadii buwan ayaa ma kala garanayo marka waa inaan mar unaan Ingiriiska tago aan kala qaybiya waxa kaloo marka iyaguna jiray qaar yar oo qofku bilada ma gashanayo mar walbaba
laakiinse markuu munaasabad tegayo tayar buu xidhanaya marka waa kuwii yaryaraa ee kuwan waaweyn la socday waxaa runtii sharaf weyn ii ah in roodi hindisahan keentay waan kugu ammaanayaa hooyo waan kugu mahadnaqayaa hooyo inta maanta halkaa inoo iman weyday laakiinse aynu xusayno aynu xusuusanayno waxtarkiiyo taariikhdii ay nooga tageen iyo magacii wanaagsanaa ee inoo soo xoojiyeen iyo nabadgelyadeennana ayaa kuwii soo xoojiyay baa ka mid ah waayo markii waddankan la qabsaday haddeen cadowgii qabsadeen laga saareen ilaah baa og meel aynu maanta joogi lahayn marka inaad xusuusato intaasoo sanood baanu England tegayn intaasoo sanood baa la tegayo laga soo noqonayay inaad noqoto qofkii kaliya ee damqaday ee xusuustay waad ku ammaanantahay waan kugu mahadnaqayaa odayaasha uu ka mid yahay xaaji maxamed ibraahim saabayar iyo xaajiga kale iyo kuwa burcay aan inoo imanin waxaan rajaynayaa in waajibka aad nagu leedihiin markaad cisbitaalka timaadaan inaad naga heshaan waxaan ilaahay ka rajaynayaa in ilaahay cimriga iyo caafimaadka baydin xasiliyo in ilaahay intii naga tagtay naxariis janno siiyo in annagana ilaahay na garansiiyo waajibka aad nagu leedihiin sharaf bay noo tahay maalinta aad noo timaadaan waanu xusuusanaa sidoo kale qaar ka mid ah dadka munaasabadan ka qayb galay ayaa soo bandhigay suugaanta iyo taariikhda ay lahaayeen dadkii hore ee reer Soomaaliland waxa ka mid ah gabay uu tiriyay ninkii loo jiray Umar Stuleeliya Umar Hussein Korse waxa gabayga ka mid ah carradii daboore iyo dhulkii canabku laalaaday jarmalkii camiray waa hore cawda loo jaray amxaarkii canaadiga ahaa loo cidiyay jiidiye sinjaar waqaashii fadhiday kama casheeyaane kuwii deer cajaa'ib lahaa carare qaarkood marka ilaa iyo xataa wiina soo gaaraya waxa kale jira gabayada ka mid ah gabay uu tiriyay nin loo jiray maxamed nuur fadal uu leeyahay ragow daacad xumo waa waxa la isku dilayaa waxa dagaalku u dhexmaray dawladaha Yurub waa waxa arliga dooriyay ee geliyay duufaan waa waxa dayuurad iyo mayl loo dejinayaa waa waxa dadkii China dhalay loo dildilayaa dugaag ba ka kacay saaxil iyo degeeladeennii marka inta dambe wuxuu kaga hadlayaa ninkan buu la hadlayaa ee dagaalka intaas unba ka khusaysa taabadaha waaweyn hadda daanka uu xusiiso maroodigu waa soo dabcaa dib u rabba Ismaaciil waxa tahay nin daran oo ka daran duur shabeel galay marka inta hore baa ka khusaysa dagaalada waxa jiray dagaalkii labaad markay soo gaadhno Ingiriis baa joogay waatii Talyaanigu qabsaday marka gabadh baa Cabdigaahir tiriyay wuxuu ka waayay gubanimadii iyo dhaqankii suubanaa ee Ingiriisku halkan ula dhaqmi jiray ayuu Talyaanigii ka arki waayay markaasuu Talyaanigu sidii duur la gubay dabiisu ka dhaafiyay dekada wax kugu qayliya kaaga soo degay dulli baad nasaartay ilaahay kugu dambaysiibi dumar iyo wax noo keenaya markay ilatariya looga keenay sekretariya iyo samaysteen marka waati laga soo degay marqula saasoo ku jabay marka ana biliqadii markii Talyaanigu kacay ayuu Cabdigaahir qolyaha ku jiray dabadeedna isagu qaraf u helay kartoon qarafa qarafkiisii uu iskala carraabo islaantii buu geeyay waxa qaniimad la helay ma qaraf baad ka soo qaaday bay tiri oogii in Talyaanigii jabay dhulkiisii iyo wixii la biliqaystay raastii waxa khayrka qaniimad helay ma naad qaraf noola soo carrawda
ina Umar Qaroone adduun qaala bixi waabi Ingiriis ba laga qaad dhulku qaytay oo degay qarka wuxuu la meermeerayaa waa nin soo qaxay tayuradu waa qayladoon qoorka maraya ma qadaynin janankii sidii la isu qoonsaday qooriga suweys ayda waa laga qamaadshay adigaaba qaraf diilayay qusay Faransiisay markii Ingiriis guulaystay afartan oday baa la xiyeel maqlay waxa la yiri kaalay soo arkay suweys cid haysata markii halka la geeyay bay war makina waa tan inoo dhawaan iska soo xajino afartankiiba soo xajiyay uqaal iyo sulaadiin iyo odaya leh markii uu si fiican u guuleystay xulufadii ka soo horjeeday Jarmalka iyo Talyaaniga iyo Japan iyo waxa la jabiyayna Ingiriisku wuxuu yeeray ragabyaaya oo markaa Hargeysa ku sugnaa isagoo doonayay inuu amaano xulufadii Ingiriisku hogaaminayay kuwa kalena uu ku digto oo tiqtiqsi baa la yiraahdaa markaad guulaysato ee faanto ee markaa balde ka waran buu yiri hadiyadana waa ku bixinaya abaalmarin markaa waxa ugu weynaa go'a shaalka ah oo markaa aad qaali u ahaa in la yaxaan nuur langare ayaa ragii ka gabiyay kamid ahaa ee go'a shaalka ka qaatay wuxuu yiri gugaygii sodonkii shanbaan baarka ka gooyi gudaa ciilka Hargeysana weli gees ma dhaafin intaan gaajo ku seexdiyay inta aan wax gasiintay haddii aan isu geeyo malaa waa isku gaw dawladda garabkeennuna ginigay shushubaysay hadday maanta ka guurto baysteenkeedii ma gaadhin bal maxaa laba gaalo abtirsiina gudboon midna guusha u siin midna aanu gubayno aniga iga gidhisha markaas la qoslo la saabiyi wuxuu gaaroodaanu degnaaye mar haddaan gurigayga garnay loola tagaynin igla ma gubanaysiyo baaris baa la gelay maxaa iga gidhisha haddana waa loo saabiyi markaas go'ay lagu tuura inta la jooji oo la sii day uu fahmi doona iyo mar haddaan ka gabiyay go'aygiina ka qaatay maxaa iga gidhisha marka inta maqana waan soo raadin doonaa intaana waan dhamaystiri doonaa insha Allah de kulankeennuna waa kii u horeeyay roodana waan ku ammaanayaa mashruuca ay wado iyo xagga waxay ka hirgelisay iyo halkan waxay ka qaban doonto iyo gidigeenba iyo de madaxdeena halkan dadna inoo joogto insha Allah ilaahay umrigeeda ha barakeeyo warana waanu yiri nin baa yiri Soomaalida waxaan dheerna raga Xaaji Cabdi Kariim Xaaji Cabdi Waraabe marka abeen xaflad joognay inaan madaxweynuhu dhalay ayaa la igu soo casuumay markaas aan dumarka waxaan dheernahay adna aadan dhakhtar la shaqeynayaba dadaalkan ay ku dhaqaaqday halse aadee waxaan annagu iska leenahay in cid kale la wadaajiyo waan hinaaso xumahayga ilaaliya leesh Somaliland ayaa leh waxaan caawiyo maanta idilkooda hadlaynay Soomaali in la wadaajiyaa waa gardaro marka contribution ka in laga hagaajiyo meesha ku jirta taas waa mid kale odayaasha halkan fadhiya waxay wax ku waayeen waagii waxay dalkuba wuxuu xornimadiisii ku waayay waxa 60kii markii lagu beeray dunidii kale ama dagaaladii kale dadkii ka dagaalamay pensionka sanadka dhowrkiis biloodba mar baa loo yeedhaa laakiin waaga waxa la yiri annaga noogu soo shuba khasnadiina ma jirto dalkiiba waa la waayay Somaliland waaga marka
wixii loo dadaalay loo qabtaana waa wax meesha ku jira waanad mahadsantiin ku dadaalay wada inaan ka qayb galo meel lagu hayo taariikhda Soomaaliland oo la xusuustay oo la leeyahay taariikhaheena aan dib u raacno xaaladaha maanta ka socda dalkeena waa Soomaaliland ama sanadahan u dambeeyayba maan filim inay jiraan dad haba yaraatay inta loo kala xitaa oo isugu malaya taariikhda Soomaaliland waxa aad loo farayaa oo la baahi doonaya taariikhda reeraha nagoo reer Cilbataaga halkaynu ka nimi awoogeen ku ahaa ayideenka ahayd iyo si loo kala qaybin lahaa ummadan ayaa maanta lagu mashquulsan yahay marka in maanta in yariba ha ahaatay ay sutumay leedahay taariikh baynu leenahay ee aynu baadi doono I'm very happy about it meel kasta qodaanna waxa ka helaysan taariikhdayada waayo waa tanbirti kabta soo hesheen waa birta ragga sameeyay baan ka soo jeedaa waa kabta birta waxaan ku ilaaha qolooyinka hadda wasaaradda dalxiiska iyo wasaaradaha la mid ah ee taariikhda baaraya aad u baara markaas ay ogaad doontaan aasaaskii inuu ahaa waabka tumaalka halka birta lagu tumo ayuun baa hadal baxrimadeenu kabtaasi hadda alla yaa batira sawiraysan wada eegaysaan anu markii baan gartay markii la keenay waa kabtii ingiriisku ku xiri jiray maxaabiista waayo jeel mu haysan markaa qofkana inuu baxsada laga baqayay yahay askariga uu haystay isna loo dhiibi jiray dadka abeerkay baa sameeyo jaliiladii bay jaliilada ma qashan jaliiladaana si sawir roodaya ka tigina wadani sawirkeeda jaliiladaasina askari bay ahayd oo inta la qaabaa la agdhigi jiray qofka dambi sameeya halka ka wada taariikhda aan iska ilowna reeraha Soomaaliland ha noolaato waxa weeye marka la yiraahdo dagaal kii labaad arintan horta waxay nagu noqotay arin degdeg oo dagaaladu way soo dhex galaan dagaalkii koowaad iyo kii labaad labadoo gabayo laga tiriyay oo lagu suntay way jirtay Soomaaliduna ma ilahan jirin joornaal wax qoran laakiin waxay ilahan jirtay article-koodu wuxuu ahaa gabayga oo ilaahay ma kala xasuusto gabayadii laga tiriyay ilaa xilligii gumaysigu yimid iyo intii dagaaladu dhacayeen waxaanad moodaa in dagaaladu Soomaalidu u dhagdheeraydo ay meesha dagaaladu markay jiraan ay aad u maqli jirtay gabay baa jira gabayadii badankoodii horta waxa iga boobay maxay taawaadanoo ku mahadsan sidoo soo qabqabteen walow aan saabo wadahayn laakiin isagu soo wada qabqabtay intii ka dambeysay hal gabay oo aan maraha soo marin baan doonayaa in halka ka yara mariyo oo aan badnayn waxa jira gabayada qaar isku guda oo ninkii hore tiriyay nin kale ka daba galo dadku moodaan inay isu eegyihiin laakiin kala gabay oo xaraf raaca oo isaga eeg iyo godka gabay waa maqasheen baan maraynayaa Faarax Nuurubere hore tiriyay oo gumaysigu markuu dhulka yimid uu tiriyay oo loo oran jiray waa duni la kala iibsadoon nala ogeysiina waa duni khiyaartii lahayd iib ku doon tahay gabayga waxa ka dambeeyay gabay kale oo ninka muto la yiraahdaa uu tiriyay oo isagana loo oran jiray waa duni ilaahay oo aad milayliyaday waa duni ilaahay oo aad milayliyaday waa duni ninka aaminta ku abees yahay gabaygaas wuxuu yiri Jarmal iyo Japan iyo ilaa China iyo Taiwan Chechnya jamaahiri iyo jamacyo reer Shaama iyadoo jeesku ku xigay juubaha u qaatay oo jaarku nabadii ka tagay dunidu ma u joogtay jabkii Bedir jiradii Uxud intuu joogay nabigeenu jananadii munaafiqa warkood jiibin ma lahayne jaamici iglanay diratay iyo garasho jaaman jihad baadil jelis dhilo iyo jabiyo duulaanba jab dagaal haduu koo u yahay dunida jiiro jab dagaal haduu koo u yahay dunida jiiro arintan kolka hore waxba anigu kuma soo talagelin waa la soo kulmay arena la soo kulmay ayuun baa ay noqotay
taariikhaha laga sheekaynayo oo imika aynu hadal hayno raggii hore ee Soomaaliyeed ee joogay beriga waxaad soo dhaleysay nimankaasi hadalladooda waa la socdaa oo waa niman awliya bood leh ayaad soo dhaleysay faaraxno markii ingiriisku wadanka imanayay isaga oo dadka u sheegaya arinta uu ku imanaya inay mustacmar tahay waliba mustacmar dadka la kala googoorsanayo oo la isku dili karo dawladaha mustacmarka ay isku dili doonaan ayuu tilmaanteeda u bixinay halka dabadeeto xilli fog bay ahayd faarax aabahay laba jir ayuu dhintay halka dabadeedna isaga oo waxa soo socda ka hadlaya waxa uu yiri ingiriis ahmar iyo talyan way ka kamiye marka ingiriisu bayno iyo kuwa kale ma bay iman ingiriis ahmar iyo talyan way ka kamiye arliga la kala boobaya nini itaarone asaila ah wa akhrisabani ligadiisi waa duuni la kala iibsaday oo lana ogeysiinay waa duuni ninkii aada iyo oday kulli taaye waa duuni habli loo ogaa aqalka diidayna orgiga riyaa taadaxa oo dafaalige waa duuni xaqi la arkaya la arjumayaa waa duuni ninkii aada iyo oday kulli taaye nimayo isaaq xaajada lala aguugayo odayaashan loo yeerayo laanfacsiinaya waa uqaashi odayaashan loo yeerayo ee laanfacsiinayo hadduu awrka dooxaba ku furo eel kala xigiye haddaan niman islaamiyatihiin aadan faracdiisa oydaan ilaahay ka goynayno oodine gabayga waxa uu ku tilmaamaya waxa soo socda iyadoo dabadeed caynka ay tahay ayaa oo bilaabmay haddana dagaalkii koowaad intuu wadankii soo galay faarax waaba lagu dukhulay in dagaalkan uu galo ingiriiska la soo dhan noqdo iyadoo haddana lagu shirqoolayo ayuu haddana u soo galay markaa dambana waa kale de halkaa faarax mooye cid kala geli karta iyadoo la yidhi buu yidhi waar halkaan de anigu keliday mari kari maayo haddana waa ka dee dhowr goor faraskiina kaga dakaamay ee halkaana haddana ka qayb qaatay dabeed ninkii ciidankaa markaa watay ingiriiska ayuu markaa layidhi dawaad ii shirqoolaysa sangihiiba waa ka habsaday sabarka weeraaye sangihiiba waa ka habsaday sabarka weeraaye maanaa biciidkii sudda iyo siinka karabeeda nin sidayda ii maagay baan see dowladahay halku ina warsameega sardil waa su'aal garan buu waxbaad iga daba taagantay xilliyada uu ka hadlayay aabbahay oo markaa adee ama dhashay ama sabi ahaa ayaa dagaalkii koobaad la galay fas batalyan ayuu galay raggii barma loo qaaday faskii raggii ugu horreeyey ee barma loo qaaday labadii batalyan kii la qaaday ee xaggaasa ayuu noqday